tagtay ee tusaalaha hanti taaranta iyo taynis lagu ladnaa dunida tagtay ee tusaalaha hanti taaranta iyo taynis lagu ladnaa adigoo tunkiyo aan toogin murqaha kolkii aad tagtaa taajir noqon kartaa koobkan waxaa ku jiro caleenta la dhaho libid caleentan waxaa loo isticmaalaa jirka lagu kalingareeyaa waxay loo isticmaalaa sokorta waxaa loo isticmaalaa dhiigkarka bini'aadanka jirkooda wixii ku jiro dhan ay falaashtaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu good morning tianshi good morning millionaires magacaygu waa Leyla Carabo Xasan darajadaydu waa 7 star waxaan ku sugannahay South Africa Cape Town waa idin salaama kulligiin inta meesha ka soo qayb gashan waan idin mahad celinayaa waxaan kaloon u mahad celinayaa kaamiraystahayna Geele iyo Cabdirasaaq Indhashacayl waxaan maanta u iskugu imaanay inaan soo bandhigno waxtarka ay leedahay daawadeyna Tianis waxaan soo bandhigaynaa maanta daawadeyna waxtarka ay leedahay Tianis waxaan faas idin kaga bilaabaynaa caleentayna libid waxtarka ay leedahay waxaan idin leeyahay shirkaddan shirkad aad iyo aad u qiimo dheer waaye oo caalamka meel waliba ka shaqeyso idinkana qoftii idin soo gaarsiisay fursada idin soo gaarsiisay maalinkaas fursada idin soo gaarsiisay oo aad iyo aad u qaaliya waa inaad u mahad celisiin cid la arkay cid ay ku hoos qoran tahay waa inay warbixin ka qaadatane ilaa qofti oo la keeno meeshan waxa laga rabaa ilaa 6 star ay ka gaarayso in la shaqeeyo haddana la shaqeeyne iyadu waxay ku leedahay anigu waas qoray waas ka baxay leedahay macquul ma naqanayso qofta markaa qorto waxaa la rabaa tababar aad iyo aad u dheer inaad siiso oo ilaa ka gaarayso 6 star aad la shaqeyso marka gabadhan Naciimo maanta ku soo dhaweeyna oo isqortay idna edikaar kan guddoonsiina hambali ayaa idin leenahay oo hambaleeya aad baan ugu faraxsanahay inaan ku soo biiro shirkadda Tianis walaalkay oo ku soo guddoonsiyay ku soo casuumay hambaliyaan leeyahay kaninigan waxaa la dhahaa Chitison waxtarkiisa ayaan soo bandhigaynaa adigoo tunkiyo aan toogin murqaha kolkii aad tagtaa taajir noqon kartaa oo wixii waxtar lahaa tilmaam bixiye taynis way tagtay oo tallaabsatay oo wixii waxtar lahaa tilmaam bixiye taynis way tagtay oo tallaabsatay oo wixii waxtar lahaa tilmaam bixiye taynis way tagtay oo tallaabsatay oo wixii waxtar lahaa tilmaam bixiye taynis way tagtay oo tallaabsatay waa 6 capsule waxaani waa Chitison capsule waxay tartaa jirka bini'aadanka wuxuu u baahan yahay olyo bedel baawurta caadiga waa la olyo bedelaa jirkuna wuxuu u baahan yahay raashin aad cunaysaa sokor aad cabaysaa saliid aad cunaysaa wax walba aad cunaysaa jirkaaguna wuxuu u baahan yahay inaad kalingareysid marka waxaan isla arkaynaa Chitison say u shaqeyso iyo say jirka bini'aadanka u kalingareelayd waxaan isla arkaynaa koogan say u kala dejiso ay u dhaqdo aan isla arkaynaa waayo koogtu waxay leedahay aashito iyo sokor ka buuxdo say u dhaqdo ayaan arkaynaa jirkeynana waa sidii koogto kale waxaa ku jirta wasaqda qofku marka uu sokor qabo marka uu dhiig kar qabo marka uu infection qabo marka uu sanboor qabo jirkiisa sunta ka buuxdo ayay dhaqaysaa Chitison waxaan isla arki doonaa Chitison waxtarka ay leedahay
taya daawalo tusmalo lahubo taynis bay bulshadu teeda jecel yihiin taya daawalo tusmalo lahubo taynis bay bulshadu teeda jecel yihiin tartankii ka banitay aruursatay caalamka tigsatay haye Jitison waad arkaysaan say u shaqaysa koogta caadiga ah waatan koogta oo Jitison noogu jirtana waatana haye say noqoto marka aan isla aragno wasaqdi way meertay hoosay fadhiisatay say noqdeen marka hadda misku ogin labadan koog meesku ku sama shirka bini'aadankana saasi u kala ingreesay koogtaas u kala ingreesay u kala fadhiisay anagana jirkeena saasi u kala ingreeyna waana u baahanahay qof walba u baahan jirkeena saasi ugu baahan inaan kala ingreeyo aad iyo aad u mahadsantihiin aniga magacaygu waa Leila Carbo Xasan waxaan idin kula noolahay South Africa Cape Town gaar ahaan Cape Town Belfast aan ku noolnahay waan ogahay qof walba waxay ka shaqaysaa shaqo aad u culus wadankeena waxaan uga soo tagnay nololaan u soo raadinay South Africa mehe qof u baahan South Africa inay ku sii noolaato ma jirto marka nolosheena waxaan ku bedeli lahaynay waa tiyaanis laakiin waxay u baahan tahay inaan isla fahanno cid waliba oo ka soo qayb gashay maanta qof TNU ah waxaan kula dardaarmayaa qof waliba maanta isigoo registeraysan oo kaar wato inuu meeshan ka tago waayo qof waliba oo meeshan yimid oo kaar wato oo idinku soo sheegay shaqadan in faa'iido badan ay leedahay oo heer sare ka gaari kartiin hal maalin shaqadan lagu soo casuumay qof waliba hal maalin loo sheegay qof hore u taqaanay ama shaqadan hore uga shaqay jirta ma jirto qof walba hal maalin loo sheegay go'aanay qaadatay way shaqaysay way ka mare dhalisay waayo ma dhacay qof hadda maanta intiinan nin walba naago qaba ama naago u baahan yahay caawa nin inta naag guursaday caawa isla uur inta qaada habeenada muxuu dhalay ma dhacayso haye faa'iidada idin kugu badan oo South Africa ugu maadeen nin walba ninka ugu yaraa 5 sano jooga hadda inta meesha fadhido ninka ugu yaraa waxa jooga 5 sano haye maxaa idin fiican 10 sano iyo 11 sano inaad cid biilkeeda la dagaalanto iyo 3 sano oo intaad adkaysato fursad fiican oo shaqo aadan u baahnayn gurigaaga joogtid inaad adkaysato 3 sano yaa fiican 3 sano ma noo fiican 10 sano oo cid biilkeeda san ku heli lahayn raadin 3 sano noo faa'iido badan soo maahan hay waayay aan isla garanno qof waliba ha soo diyaar garowdo qof walba xogta ha qaadato qof alla qofti meeshan maanta fadhidan qof aan kaar wadan yay caawo yaadin qof walba ha is diiwaan galiso fursadda la idin soo sheegay qof idin wax idin dheer ma jirto wax barasho la iska marabo aqoon la iska marabo shahaado lagu xujeyma sharci lagu xujeyma cid walba oo soo xaadirtay falaad uma imaanaha is registerayso ayadoo registeraysan ha ka tagto balfal caawa waxay isu registeraysan ha ogaato isuma registerin company-gu wuxuu yahay inay ogaatay waxay isku registeraysan inay nolosheeda iyo nafteeda ay horumar gaarsiiso dadkeeda ka dambeeyay ka soo tagtana ay horumar gaarsiiso asxaabteeda iyo ay familkeeda gurigeedana ay horumar gaarsiiso ee qof walba isu qortay xoog ha saarto qof walba waayo nin walba hadda dukaan haduu furto lacag ka bixiyo wuxuu ku taxadiraa dukaankiisa u kala kicila hadda intiina qof wax u ogolmaan jirta qof nin walba dukaankiisa bishi caawa hadii 100 ran oo ka nusqaan wuxuu isleeyahay MTA meelaha lagu qabto dukaanka meelaha ka fiirfiira sawma waa ogaan uu lukayn waaqna nin walba wuxuu leeyahay dukaanka seelkiisa macaa isu dhimay ya dukaanka seelkiisa waxa ku dhacay dukaana la igu qabto meelaha soo fiirfiiri nin walba dukaankiisa soo hormar u gaarsiilaa dukaankiisu lacag fiican u shaqeeylaha ku fikiraa sawma laakiin company-gaanu ma ahan xaasid isku ma ahan empty ma ahan cid alla cid taqaaniya saxaabtaada meel alla meesha ay joogto la wadaage kan hortaa qorayna waad caawine kan hadda soo biirina waad caawine kan ka horeeyana waad caawine meeshan waa meel lees caawiyo ma ahan empty hebela ka shaqeeya adna kama shaqeey kartid ma qof walba ka shaqeey karo welcome magacaygu waa Ismaaciil Maxamed Bashiir ku nool South Africa Cape Town Biavel waxaan halkaan isugu imaanay inaan barano waa maxay tiyaanis darajadeedu waa 6 star in buff kamaniga waxaan kamid ahay hal sano bar macluumaadka badan aan ka helay qofka igu soo casuumay magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Taxu Sakaay walaalkay wuxuu ku nool yahay magaalada Muqdisho waa apply-kayga maanta yaani soo gaasiyay shaqadan anigoo ku nool South Africa in badan shaqadan hal sano bar aan ku noolahay iyo
shaqada aan South Africa aan u imaaday 10 sano ku dhawaad aan ku noolahay halka sano bar isbedelka aan dareemay alxamdulillah waxaan ugu mahadcelinayaa Allah ka sugo ableenkayga Maxamed Tuxu Sakaay company-gaana Captain inuu yimaado waxaa sabab u ahay Hussein Maxamed Geedi wiil yiraahdo ableen ah maanta aad loo wada yaqaano ku noolaa jira South Africa muddo 10 sano dukaamo badan ku leeyahay jiray ilaahay wuxuu qadaray in company-gu isku soo diiwaan gashay asoo Soomaali aad u ehelkiisa iyo xaaskiisa caruurtiisa aaday iska soo diiwaan gashay hal sano gudaheeda markuu company ka shaqeynay uu dukaaminkii wixii dhamaad ka dhamaaday ee Soomaaliya uu dhamaaday maanta wuxuu ka mid yahay Tiyaana dadka ugu sareeyo Muqdisho jooga go'aankii markaan shalin qaadanay aan way ugu adkeed balse markaan galay in shaqada aan gudaha u galay waxaan ogaaday Tiyaana waxay tahay alxamdulillah maanta Tiyaana kun jooro shaqooyin hadii la soo bandhig maanta ku doorsan maayo Tiyaana nolosheeda bedeshay nolosha ehelkayga bedeshay waxaan ku daweeyay Tiyaana qayb ka mid ah ehelkayga baan ku daweeyay aniga isku daweeyay soo wax waliba markaan dukaanka furanayo anigoo Tiyaana ka shaqeysanayo baa hadana daawooyinkii iyo wax soo saarkii company aan isticmaalaa waa waxaan la helin adduunka meesan dhicin ka shakiribaas wax walba ka soo adeegana meesan dhicin 10 kun 20 kun ku dhawaad baan ku adeegana maalin walba meesan dhicin ka shakiri aan ka adeegano inuu na soo waco oo yiraahdo niyo intaas sana baa iga adeeganaysanay lacagtan 20 aan ku nooran adaa kugu talagalay maadaama custom weyn aad ay tahay waligeed qof la yirmaado ku jiro oo fariin lagu siiyay su'aashu waa maya company-gu wax soo saarkiisa baad aad marketing u suubinaysaa oo yani aad macaamiisha la wadaagaysaa company-gu markaa wax ka iibsato oo aad alaabtiisa iibsato adiguna waad ku daawowaysaa company-guna abaalmarin buu ku siinayaa ehelkaagana waad ku daaweynaysaa adiguna daraj baad ku gulaysaa noloshaada baad ku bedelaysaa company-gu shaqada lagaaga rabo adiga waxay tahay shaqada yani radio-ga ama yani wariyaasha ay qaban jireen raadiyaasha lagu gudbin jiray macaamiisha lagu gudbin jiray baad adiga step by step qofka taqaana aad u sheegaysaa qofkii baad si tartiib ula samcaalaysaa raadiga wixii laga sheegi lahay baa adiga shaqo ku noqday maalin walba shaqooyin baa sheegnaa maanta haddii aniga aan hotel rabo ee magaalada aan ku cusbaan soo dego qofkii ugu soo dhaweeyay saaxiibkay waxaan leeyahay maanta hotelka ugu fiican magaalada Captain Biaval hotel hebel buu u sheegaa Soomaa marketing baa sidaas ku soo basay laakiin ninka hotelka la adig kuma ogo of course laakiin Tiyanis haddii daawadeeda mid kamid ah yani aad sheegto wax soo saarkeeda iyo wax dheefkeeda aad soo sheegto ee aad qofku u iibsado kaarkaaga baa siinaysaa kaarkaaga markuu wax ku iibsado adiga darajad baa ku galayso kasta sir aad sheegtay marka Tiyanis nolosheenan u baahan aniga u baahan Tiyanis ha jirto dhamaantiin waa mahadsantihiin aniga magacayga waxaa la Salaad Maxamed Xuweey company-gaan in muddo ayaan kamid ahay muddo 2 bilood afka la sii galaysa ayaan kamid ahay ma sha Allah wax badan ayaan markino aan meeshan ana ugu faa'iiday haday noqoto xag dhaqaalo iyo haday noqoto xag caafimaad dad badan ayaan macnaha shirkadda aan ku soo xiray oo ku caafimaad wali waalid iyo sida islaan oo aniga abtiga ka dhintay oo burmashaan ku taalay macnaha way ku daawooday marka dad kale way jiraan sida hooyada oo kale idin oo baarkeedina bur ugu taalayna daawo ayaan meesha ugu qaaday xagga Soomaaliya aan ku xiray ma sha Allah way ku daawooday marka aniga 2 bil ayaan kamid ahay hadda kaalinta sanad ayaan ku jira marka dad walaalahayna aan ku soo xiray ayagana shirkadda ma sha Allah wax badan ay isaga bedelay marka shirkaddan marka aad iska diiwaan geliso waxa laga rabaa qofka ugu horeyso aad macnaha aad u bandhigayso inay ahaato walaalka xaaskaaga iyo ilmahaaga because waa wax wanaagsan waxa marka hore macnaha loo geeyaa dadka kugu dhow marka ayagana saasay ku sii gudbinayaan marka ma sha Allah Tiyanis waxaan ku jiraa kaalinta shanaad wax badanna kuma jiro wax badanna waan ku faa'iiday ma sha Allah waa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو عبد الولي علي نور وكنول سود أفريقيا قارهان كابتون بيالفل حافظة الصومالية دي دكتو كمبرينغا وحان كسو بيربيش السيديدات تياينس 2020 وحان كجرو هذا لوا بلوت markii kambaniga la ila qaybsaday wiil saaxiibka ila qaybsaday waxaan go'aansaday inaan waxtarkiisa tijaabiyo waxaan qabay cudurkan la yiraahdo gas caloosha ku dhaco waxaan isticmaalay 4 week ayaan isticmaalayay kaniinigan zinc la yiraahdo marka hore ka horna waxaan isticmaali jiray daawadan farmashooyinka laga soo iibsado kaniini 21 ran jooga xabadkii baan isticmaali jiray farmashooyinkii waxay dhaheen wax badan aad cuntaa kaniinigan iska yareey anigoo la yaabana wiilkan saaxiibkay kambanigan igu soo xiriyo daawadan iyo waxtarkeeda waxaan ku dhahay waa marka hore waan tijaabinaa kadib ayaan fariiniskayga la qaybsanaa kaniinigan aan isticmaalay 4 week markaan cunaayay waa bil waan bogsooda ma sha Allah alxamdulillah dabeetana waxaan bilaabay inaan fariiniskayga u bandhigo maadaama
aan Soomaali isjecelnahay wixii caafimaad ku jiro iyo wixii wanaagsan inaan friendskaaga u sheegto markii aan walaalahay u sheegay waa ila qaateen barnaamijkeygii hadeertan waxaan marayaa 6 star dadkii ugu hoos qoran 20 qof ay ku dhow yihiin waxaan dhihi lahaay Soomaalida way isjecel yihiin laakiin waxay rabaan itusay taabsi aniga waan arkay waa tijaabiyay kambanigan daawadiisa wallahi aan ku dhaartay daawadan cuni jiray tan ayaa ka quality badan maxaa yeelay maalin walba cuni jiray hadda 4 week aan cunay hal bil aan isticmaalay waan iska joojiyay waa fiicnaada ma sha Allah waxaan dhihi lahaay kambanigan daawadeen waa daawo quality leh waxaan ka rabaa inaan sameeyo walaalaha aan u jeediyo wax barnaamij walba waxay u baahan tahay isku day maanta nin walba oo success gaaray ama madaxweyne noqday amba ahayn qoraan noqday amba jaamacad ka qalin jabsay uu isku dayay marka yaana la isdhihin waxaan ma soconayaan waxaan soconayna male wax walba waxay u baahan yihiin isku day iyo inaad adiga samayso go'aankana aad qaadato marka hore kadibna aad isku daydo tiraahdo walaalahay waa kana barnaamijka waa fiican yahay kala arag waaye waa kaasaha marka waxaan dhihi lahay intaas ayaan ku soo gabagabay lahay kambaniga waxtarkiisa waa idin salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh haddii laga hadlay caafimaadka oo wax kasta laga hadlay oo sidii loo shaqeyn lahaa laga hadlay xagga dhaqaalaha ay idin hadlaa saw ku yimaado dhaqaalaha marka waxaa leen ka rabaa asxaabtiina aniga waxaa isoo gaarsiisato walaashay Sahra Cabdullaahi Maxamed ilaahay khayr hasiyo waxaa ku in badan aan ku diiday hoosh marka galayso mar waliba waa ku adagta wax kasto inaqataba waxaan dhahay iga dhaaf waxaan marka adiga lacag qaadatay tus markay lacag qaadatay tustay kabacdi waxaan dhahay markaad adiga lacagtan waaba qaadato waa ku arkay gaari qaado gaariga markay qaadato haddana markaas kabacdi aan guluf soo galay marka intaad markaas guluf soo gali lahayd hadda guluf gal saasaan idin leeyahay xaggaas dhaqaalaha ay saas inkaga soo dhaweeyaya maadaama caafimaadka iyo kulleen leen kaaga hadlay oo jidta soo leedii soo bandhigay hambali ayaa idin leeyahay assalaamu calaykum waan wada salaama dhammaan saa lagu wada fadhiyo meesha gabdho iyo wiilal maanta ay ugu horeyso horta inaan soo fadhiisto barnaamijkan la sharaxay inaan arko waxaan igu soo casuumay walaalkay Yuusuf Xamuud Xogey marka waa markii ugu horeyso oo aan imiday waana ku qancay daawada iyo wax dheefkeeda marka waxaan rabaa maanta inaan ismacnaa magacayga qoro oo kaarka qaato oo aan kaarka qaato mukushikay u haydo marka waxaan joognaa South Africa Cape Town Biaval ما شاء الله واني سلام غيرت واني سلام تيانش كيب تون ابو تنس كيب تون ما شاء الله ادي ادو فرحسناhay barnaamijkan inaa ka soo qayb galo waa markii ugu horeysay anigoo isdiiwaan gashay adii muddo bil diiwaan gashanay shirkadan Tens Cape Town ka diiwaan gashanay waxaan ugu casuntay xaaskeyga Faadumo Cabdullaahi barnaamijkan soo bandhigtay ugu casuntay anoo waxoogaa ka cajisanoo diidayo markii dambe markii barnaamijkan heer u gaaray oo laga qayb gashay Zoom la dhahayo barnaamij Cape Town oo Tens Cape Town oo Tens oo ku sheekaysanayaan markaa dhageysta barnaamijka wixii ka qayb galay waxaa soo baxday barnaamijka inuu barnaamij fiican yahay oo muddo dheer u baahneen inaan ka faa'iideysano markii dambe isla markaas go'aan qaatay waan ku soo biiray waa diiwaan gashay waan isqoray alxamdulillah ma sha Allah alxamdulillah ma sha Allah hadda wax badan dareemaya bilaa diiwaan gashanay waxaan qoray dad walaalay u sheegay waa qoray 3 qof amal qoray adiga already dad lacag ku taala leedahay $132 ku taala leedahay maanta ayaa la balansana leel arag walaashay inay siiso lacagta ee leeyahay jiro marka ma sha Allah aad iyo aad ugu faraxsanahay waa barnaamijkan naga maqnaay waxaana ka shaleeyay muddo dheer inaan maqlino ogaanin oo hadda gadal ka soo gaarnaa laakiin insha Allah wax walba waqtigeeda leedahay dhalinyarada hadda asxaabta meesha joogto waxaan leeyahay ku soo dhawaada barnaamijkan barnaamij fiican waan laga faa'iideysan doonaa wax badan oo laga faa'iidey doonaa anigoo wadankan ku sugan muddo 15 sano ah oo hadda kulleeto nolosha leela tacaalino hadda waxa dareemayna meeshan horumar ka muuqdo dad badan oo garanaynin aamina arkay inay macna qaateen awalmarino baabuur ku guuleysteen haddana heer fiican gaarsiisan yihiin marka hamigeen insha Allah hamigay aad u sareeya qofka sanoo aan leeyahay insha Allah ku soo dhawaada barnaamijkan waa barnaamij fiican ma sha Allah